guddoonka golaha shacabka iyo xildhibaano ka tirsan golahaasi ayaa xalay markii ugu horreysay waxa ay kulan la qaateen ra-iisul wasaaraha magacaaban ee uu soo magacaabay madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo. dhinaca kale ra-iisul wasaaraha ayaa waxa uu ka dalbaday baarlamaanka soomaaliya inay siiyaan codka kalsoonida. liibaan nuur xasan ayaa warkan inoo soo koobaya. ra-iisul wasaaraha dhowaan la magacaabay ee Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa diray fariintiisii ugu horeysay tan iyo markii dikreetadiisu ay ka soo baxday xafiiska madaxweyne Farmaajo 3 habeen ka hor. ra-iisul wasaare Rooble waxa uu fariintani kula hadlay baarlamaanka Soomaaliya gaar ahaan xildhibaanada golaha shacabka oo weydiistay codkooda kalsoonida. sidoo kale waxa uu sheegay inuu aqbalay mas'uuliyadda uu igmaday madaxweyne Farmaajo ee xilka ra-iisul wasaaraha. waxa farxad ii ah in aan idinla wadaago in aan si sharaf iyo dareen mas'uuliyadeed leh aan u aqbalay kalsoonidii uu siiyay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdulaahi Farmaajo iguna magacaabay xilka ra'iisul wasaarenimo ee xukuumadda Federaalka Soomaaliya. sidaa darteed waxaan doonayaa in aan codka kalsoonida weydiisto golaha shacabka aniga oo rajeynaya in ay isiin doonaan codka kalsoonida si aan u guto waajibaadkayga. warar ay heshay idaacadda kulmiye ayaa sheegaya in qorshuu yahay Isniinta berrito in Rooble la horgeeyo xildhibaanada golaha shacabka si cod loogu qaado, waxaana saacadihii u dambeeyay Muqdisho ka socday kulamo gaargaar ah oo uu ku kasbanayo xildhibaanada si ay codkooda kalsoonida u siiyaan. 17 bishan ayaa Maxamed Xuseen Rooble loo magacaabay ra-iisul wasaaraha Soomaaliya kadib 54 maalmood oo dalku ra-iisul wasaare la'aan ahaa, inkastoo Mahdi Guuleed uu ka soo ahaa kusime. haddii uu helo Rooble kalsoonida baarlamaanka waxaa hor yaala shaqooyin adag, waxayna magacaabistiisu ku soo aaday xilli uu dalku cagaha la sii gelayo marxalad kala guur ah, waxaana looga fadhiyaa inuu hirgeliyo heshiiskii doorasho ee Villa Soomaaliya lagu kala saxiixday saacado uun ka hor inta aan la soo magacaabin. dhanka kale gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan ku-xigeenkiisa koowaad Cabdiweli Sheekh Ibraahim Muudey iyo xildhibaano ka tirsan golaha ayaa xalay hoygiisa ugu tagay ra-iisul wasaare Rooble halkaas oo ku dhex maray kulan saacado qaatay. madaxweynayaasha maamul goboleedyada ayaa shirar gaargaara ka wada magaalada Muqdisho oo ay ku sugan yihiin. shirkan waxa ay la qaadanayaan xildhibaanada baarlamaanka ee laga soo doortay deegaanada gobolada dalka iyo sidoo kale siyaasiyiinta kale ee xisbiyada dalka uu ka mid yahay. madaxdan ayaa shirarkan waxa ay kala hadlayaan siyaasiyiinta ay la kulmayaan arrimo la xiriira shirkii Muqdisho ku soo dhamaaday ee doorashooyinka heshiiska looga gaadhay. madaxweynayaasha Puntland iyo Jubbaland Siciid Cabdulaahi Deni iyo Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe ayaa ka mid ah xubnaha shalay ilaa iyo xalay shirarkaasi ka waday magaalada Muqdisho, waxaana wararka qaar ay sheegayaan in kulamada waxyaabaha looga hadlay ay qayb ka tahay xiisada ka taagan gobolka Gedo. markana wararka Shabeellada Dhexe. booliiska maamulka Hirshabeelle ayaa sheegay inay cadaaladda hor keeni doonaan dadkii ka dambeeyay dil macallimiin loogu geystay gobolkaasi, sida warkan uu ku faahfaahinayo Cali Cilmi Salaad. afhayeenka booliiska maamulka Hirshabeelle Diini Axmed Rooble oo la hadlay raadiyaha kulmiye ayaa sheegay in laamaha ammaanka ee maamulkaasi ay soo qabteen shakhsiyaad looga shakisan yahay culimadii maalintii Khamiista ahayd lagu dilay deegaanka Kookaar oo u dhaxeeya degmooyinka Raagaceelle iyo Cadale oo ka wada tirsan gobolka Shabeellada Dhexe. afhayeenka ayaa ka dhawaajiyay in howlgal qorsheysan oo ay sameeyeen ay ku soo qabteen 34 qof oo lagu tuhunsan yahay ku lug lahaanshaha weerarkii culimada lagu laayay, welina ay wadaan howlgal lagu baadigoobayo maleeshiyaadkii falkaasi geystay. sidoo kale waxa uu hadalkiisa ku daray afhayeenka booliiska ee maamulka Hirshabeelle Diini Axmed Rooble in dadkii lagu soo qabtay howlgalkii ay sameeyeen laamaha ammaanka loo gudbiyay magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeellada Dhexe, sharcigana la horgeyn doono sida uu sheegay. la tuumayo ayaan ku soo qabanay, waxaan u dhiibnay hay'adaha ku shaqo leh ee baarista ee dowlad goboleedka Hirshabeelle. oo maasan tahay tirada aad u badan waay la tuumayo in ay yihiin ay ka mid noqon karaan dadkii dhibaatada geystay ayaan soo qabanay. nambarkooduna hadda waa 34 qof. waxaan u gudbinay caasimada dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaan u gudbinay, halkaana ayaan rajeynay inay gaaraan si loo xaqiijiyo cidda dembiga geysatay inay ayaga yihiin kale. insha Allah waxaan rajeynayaa inaan cadaaladda hor keeni doono kooxihii dhibkaasi geystay, go'aan dowladnimo iyo awaamiir dowladnimo ay ka soo bixi doonaan. culimo ku jirtay quraan akhris ayaa aroornimadii hore ee subaxnimadii Khamiista lagu dilay deegaanka Kookaar
waxa uuna falkaasi ka mid noqday dhacdooyinka xanuunka iyo murugada lahaa ee dalka ka dhacay maalmihii lasoo dhaafay kuwaas oo reebay xasuusta mahadhooyin aan la mahadin. mahadsanid cali cilmi salaad. jubbaland ayaa sheegtay in howlgal looga hortegayo weerarada ay dagaalamayaasha al-shabaab ka geystaan magaalada kismaayo ay sameeyeen. waryaheena cabdimajiid cabaas aadan ayaa warkan ka soo diray magaalada kismaayo. ciidamada ammaanka ee dowlad goboleedka jubbaland ayaa howlgallo ka sameeyey gudaha magaalada kismaayo kuwaasoo ay sheegeen saraakiisha ciidamada ee jubbaland in looga hortegayo weeraro ay dagaalamayaasha al-shabaab ay ka geystaan gudaha magaalada kismaayo kuwaasi oo muddooyinkii dambe aynu soo dhaafnay kusoo badanayay xaafadaha ay ka kooban tahay magaalada kismaayo. weerarada sida gaarka ay ciidamada jubbaland uga hortageen ayaa waxa ay sheegeen inay yihiin weeraro bambaano gacanta laga tuura oo ay sheegeen in dagaalamayaal ka tirsan kooxda al-shabaab ay ku kaydsanayeen mid ka mid ah xaafadaha ay ka kooban tahay magaalada kismaayo. gaashaanle warsame axmed geelle oo ka mid ah saraakiishii ciidamada hogaaminaysay ee howlgalkan ka fuliyey guud ahaan xaafadaha ay ka kooban tahay magaalada kismaayo oo warbaahinta kula hadlay gudaha magaalada ayaa waxa uu faahfaahin ka bixiyey howlgallada guud ee ciidamada jubbaland ay ka sameeyeen xaafadaha ay ka kooban tahay magaalada kismaayo. taliyaha ayaa sidoo kale waxa uu markaasi sheegay in ay jiraan rag loo soo qabtay in ay xiriir la leeyihiin dagaalamayaasha kooxda al-shabaab. sidoo kalena waxa uu sheegay in baaritaano ay ku wadaan raggaasi. waxaan ka howlgalnay howlgallamada caadiga ah guud magaalada cadowgana ay isku dayayaan inay magaalada amnigeeda ay khalkhalgeliyaan, dadka shacabka degan ay khalkhalgeliyaan, ay ugu talagaleen inaan magaaladan nabad lagu noolaan, laga ganacsanin, bulshadu ayna nabad ku noolaanin. sida ay wax badan bay Kismaayo amni ahayd, amniga Kismaayo ay isku daan inay khalkhalgeliyaan. intaasaan anaga ka hortag horena u shaqeynay. wuxuu cadow mar walba 24 saac umad dhigooda banaystay oo u talagalay inuu qofna noolaanin idan ayaa ka hayn maahan. waxay u talagaleen dadka shacabka inay canshuurta ay ka qaadaan sidii ay dawladda Jubbaland canshuurta inay canshuuraan. qofka diidana ay ama meena dalba u dhajaan u soo hanjabaan oo dhahan canshuurta baan ka rabnaa. oo waxay marka ku nool yihiin ummadda Soomaaliyeed ku dhibaateynayaan. canshuurta dadka qaadanayaan hadana dadkiisa ku sii dhibaateynayaan. sidaas awgeedna ka hortagayna aan howlgal qaadnay. muddooyinkii dambe aynu ka soo gudubnay magaalada Kismaayo waxaa ku soo badanayay falalka ammaanka lidiga ku ah, waxaana si joogto ah gudaha magaalada Kismaayo maalmihii aynu ka soo gudubnay uga dhacaya weeraro markaasi laga fuliyo xarumaha dawladda iyo sidoo kale goobaha ay bulshada ku kulanto. cabdilmajiid cabaas aadan, fantastic, KNN, Kismaayo. markana wararka Muqdisho. waxaa saakay dib u bilowday shaqada garoonka diyaaradaha aadan cadde ee magaalada Muqdisho kadib markii diyaarad xamuul ah ay ku dhex burburtay waaberigii hore ee shalay. diyaaradaas burburtay ayaa ka baxday magaalada Muqdisho iyadoo kusii wajahnayd magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan, balse waxay diyaaradaasi dib u soo laabatay inta aysan gaadhin magaalada Beledweyne kadib markii duuliyihii uu dareemay in diyaaraddu ay leedahay cillad. 4 qof oo shaqaale ah ayaa la socotay diyaaradda markii ay ku dhex burburtay garoonka aadan cadde ee magaalada Muqdisho, waxaana laga soo badbaadiyey iyagoo dhaawaca, sida uu wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada ee Soomaaliya u sheegay KNN. saacado ay hakad gashay shaqada garoonka kadib ayaa saakay dib loo furay howlihii shaqo ee garoonka diyaaradaha ee aadan cadde.